الله نحرسته وحصو يري جيريده جنرال فرحان محمود آدن فرحان قرولة وحاوها نندل يراه وحاوها هالجمال ديرن وحاوها روح إسليهين إساقيا مسؤوليديه عيدان إلو حنباريي إذا مدى أمان كدحدوده وحاوها قرولة تركال كدح تلماما وهاو الكرا جنرال فرحان محمود آدن فرحان قرولة وحاوها مدحي بوليسك قبل كبنادر sidoo kale wuxuu ahaa madaxa booliska gaarka ah ee Harimcad Farxaan eebbaha u naxariistay waxa uu ahaa ninkii hogaamin jiray howlgal kasto adag oo lagu soo afjarayo weerarada al-shabaab ku qabsadaan hoteelada Muqdisho ama caasimadda ay ku soo galaan howlgallada oo dhamaantood Allah u naxariistay Farxaan si xaraga leh iyo xirfad sare ay ku dheehan tahay uu soo gabagabayn jiray una hogaamin jiray waxa lagu xasuustaa dhammaan howlgalladii hoteelada Muqdisho iyo banaanka caasimadaba guulihii uu ka soo hooyay waxa lagu xasuusan doonaa sidii xilkasnimada wadaniyada iyo geesinimada lahayd ee uu soo badbaadin jiray boqolaal kamid ah dadka Soomaaliyeed oo ku go'doonsanaa dhulalka argagixisadu qabsato General Farxaan inta la og yahay ma jiro hal howlgal oo aanu ka keenin guul lagu tanaaday kolka laga reebo weerarkii Hotel Hayat ee dib looga cishay kolkii uu gudaha galay dadka qaarkiina uu badbaadshay si guud iyo si gaar ahba General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa uu ka mid ahaa saraakiisha kooban oo ciidamada xoogga iyo kuwa bilayskaba isugu jira kuwaasoo sida runta ahaa cadowga dhabta ee al-shabaab iyo ragga kooxdaas dhexdooda loogu nacaybka badan yahay xilligii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo General Farxaan Qaroole Allah u naxariistay waxa uu dalacay tiraba dhowr jeer oo isxiga ilaa heer uu gaadhay darajada general taasoo uu ku mutaystay howlgalladii uu guulaha ka keenay Farxaan way yarayd howlgal aan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo guusha uu ka keeno ku dalacsin Farxaan wuxuu sitay darajooyin isaga iyo ciidankiisuba ay dhigooda u soo shubeen uguna badheereen haliso nafta biima geli dhammaantood ahaa General Farxaan Maxamuud Aadan eebbaha u raxmadee wuxuu ahaa ruux aan madaxweyne Xasan Sheekh agtiisa rabitaan u oolin dhanka ciidanka xoogga iyo dhinaca ciidamada bilayska Farxaan wuxuu ahaa saraakiisha ama sarkaalka labaad ee xilligii ololihii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baaqyadii uga yimi ka yiri maya iyo maya xilligaas oo madaxweynuhu labada gacmood iyo madaxaba uu ku tumayay durbaanada qabyaaladda Farxaan Maxamuud Aadan xilliga madaxweynuhu laba gacmoodinayay durbaanada iyo daasadaha qabiilka waxa lagu xasuustaa kolkii generaalku dhag jalaq u siin waayay in madaxweynuhu soo hor istaago ummadda Soomaaliyeed isagoo dhahaya wiilkaygii oo soo raac qabiilkaaga oo dawladnimada ka kaalay waryaa hooy Farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yarata mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimriga ka dhimna hadii Ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro Allah u naxariistay Farxaan kuma dhiman goob dagaal oo la isku mutay sidoo kale ma uu wadan baabuurtiisi aan xabadu kareynin waxaana uu ku go'ay goobaare iyo goobaas oo dayac u dheeraa su'aalo fara badan ayaa geerida foosha xun ee Farxaan Maxamuud Aadan dul hoganaysa su'aalahaasi qaarkood haddaan dul istaago waxa kamid ah Farxaan muxuu ka doonay meesha haddii aan dagaal ka socon dagaalku muu dhiman ee maxay tahay miinada u gaarka ahayd gaadhigiisa muxuu uga tagay baabuurkiisi aan qaraxa iyo xabaduhu kareynin baabuurta cabdi bilayaasha ahi way isku wada eegyihiin waana isku sumad maxaa u gaar yeelay miinada gaadhiga Farxaan waa dalka janan ilaa heerka lagu tabcay uu sahalkaasi uga dhiman karo goobta la yiraahdo Basra ma midba mise boqol basra jira Allah u naxariistay geerida
farxaan maxamuud aadan waxay sababtay kacdoon degdega oo ka dhex qarxay ciidamada gaarka ah ee Harimcad. Ciidanku waxay dib uga soo baxeen farimihii uu ku geeriyooday iyo goobtii saaka uu baxay ee miinada loo dhigay. Waxay dalbanayaan ciidamada gadoodsan ee Harimcad in baaritaan degdega loogu sameeyo geerida hogaamiyahoodii. Farxaan wuxuu ahaa lafdhabartii ciidanka Harimcad, wuxuu ahaa sarkaal si weyn loogu soo tabcay. Geeridiisa kadisada ahina su'aalaha dul hoganaya waa kuwa sii kordhaya. waxaan idinku dhaafayaa Rabbi weyne ha u naxariisto Generaal Farxaan Qaroole. inta aynu ku kulmi doono warbixino dhowr oo inoo soo socdo toddobaadkan gudihiisa waxaan idinku dhaafayaa nooli kulante.